komishanka doorashooyinka waxa weydiinaya waxa dhacday ololo xisbiyo oo aan sharciyeysnay suu maxamed sheegay inay socdaan horena way u dhaceen digniinna waa soo saarteen digniinni waxba kama socon ilaa hadda kulmiyo waddan way sameeyeen maxaa idinka qorshaysan mise haddaa shuruuc soo dejistaan yaa damaanad qaaday inay fulayaan mahadsantiin aad baad mahadsan waxaan weydiinayaa guddiga doorashooyinka maadaama la sameeyo ololo khayro sharciya aad ka soo saarteen yacni ganaax ilaa imikana aan lagu waantoobin bal ee xisbiyada qaar ay ku ololeeyeen hantidii qaranku wada lahaayeen sida hadday ta leebarkii dowladda hadday ta gaadiidkii dowladda fagaarayaashii khayryada idaacaddii raadiyo hargeysa iyo tvgii qaranka go-aankiina maalinta doorashada maxaa laydinku aamini karaa aad baad mahadsantay bisha Oktoobar ee soo socota 21keeda ayaa ololaha xisbiyadu saddexda xisbi ay bilaabanayaan mid walba wuxuu leeyahay 7 cisho oo uu ku ololeynayo kaga dhergaayo marka waa sida horta nidaamka hase yeeshee waxaa jirta in ay dhacday hore ay u jebiyeen sharcigaasi xisbiyadu laakiin sidaa kuma naandeynay waanu ganaaxiina maalin dhaweyto waxaanu sheegnay inaan bixin laakiin caawa waxaanu sheegaynaa inay ganaaxi bixiyeen xisbiyadii aanu ganaxno laba xisbi ka koobnaa oo ah xisbiga wadani iyo xisbiga kulmiye komishanka doorashooyinka qaranku sidaynu ka warqabno dhawaan xisbiyada qaranka qaar ka mid ah welibana xisbiga kulmiye waxa uu galbeedka ka sameeyey olole waxa loo baneeyey calaamad khayryadii oo kale tusaale ahaan meeshii lagu talagalay olole in lagu qabto hargeysana dad badan laga reeyo la geenay meesha komishanka doorashooyinku wax tallaabo sharci oo ay ka qaadeen walaalaan ma jiro taama loo dhakaa kalsoonidii dalka ay ku qabeen ay waaqici kartaa aad baad mahadsantay wixii dambe ee iyana ah olole aan loogu talagelin waqtigiisii haddii aanu aragno waxaanu leenahay gundiga anshaxa oo iyagu hawlaha mooye wax kale aan la socono ilaa ilaalinaya guddigu markaa waa eegayaan hadday arkaan isu soo baxaasi iyo waxa halka ka dhacay xisbigaasi uu ka sameeyay inay olol yihiin report bay qorayaan reportkay noo soo qoraana waa noo soo gudbinayaan ganaaxuna halkaas uu ka imanaya ganaaxu mid waliba ganaaxu markii hore wuu yaraayay imika waxaan idin sheegaynaa inaanu kordhinay si ay u baqdaan oo aanay ugu dhiiran way xisbiyada qaarkood waxay dhahaan lacag ma haysano marka sidaa darteed wixii hadda ka dambeeya ganaaxuna waa ka badan yahay intii hore ganaaxiinu wuxuu ku ekaa markii ay ololaha sameeyeen kulmiye iyo wadani ee ay kala tageen weliba gobolada bariga labada xisbiba imika kulmiye wuxuu tegay gobolada galbeedka wadani wuxuu tegay gobolada bariga ganaaxiini kadib weeyaan ma muuqataa in weli sharcigiisii jabayo horta waxaad la socotaan markaanu miidiyaha la hadlayno waxaan filayaa inaad maqasheen markaanu khaas ahaan joognay sool digniin culus baanu siinay hadday xukuumadda tahay iyo hadday xisbiyada tahayba marka waxa weeyaan qaanuunka waa in la ixtiraamaa ama sharciga waxa lagu ixtiraamayaana markaan anagu sharcigii soo dejino waa in fulintii la helaa fulintii xukuumadda waa in la fuliyaa lagu qaadaa sharciga ay jebiyeen imikana way jebiyeen ganaax bay leeyihiin waanu soo saaraynaa laakiin waxaanu idiin sheegaynaa oo aanu iyagana hortiinna aanu ku karnaqsannay markaanu joognay magaalada laascaanood miidiyaha aad ka maqasheen madaxweyne qofka doonaya mas-uulka doonaya inuu madaxweyne waddankan u noqdaa waa inuu ixtiraamaa disbiliinka iyo sharciga u yaala komishanka doorashooyinka hadduu hadda ixtiraami waayo sidee buu inuugu hogaamin doonaa inuu mar dhow ixtiraamo markuu madaxweyne noqdo inuu sharci waddanka ku dhaqo idinka weeyaan markaa dadka kala saaraya annaku guddi farsamo nahay intii karaanka iyaga waanu samaynay waananu samaynaynaa laakiin waa dadweynaha iyo muwaadiniintu waa inay kala saaraan qofka ama mas-uulka jebiyey sharciga ee hadda ku dhaqmi waayey siduu idiin hogaamin doono su-aashaas waa mid idinka idin taala laakiin Saciid adigoo raaliya commissioner Saciid guddida doorashooyinku marka laga hadlayo ololihii hadii xisbiyadu hogaansami laayeen xogaha anagu aanu hayno yaanu xafiisaanayno in hoonkeebil hayno waxa jira xisbiyo isku diyaariyay oo kaadhadhkiina iibsadaan isku diyaariyo bareedha oo dadweynihiina ka urursadaan bareedha oo dhalinyaradii ka urursadaan bareedha oo xogahoogu ay yaalaan sidaad aduba u sheegtay inaad xogaha aad maqasheen maxaa tallaabo ka qaadi karaysaan hadiiba ololahoodii aad xakameyn kari laadiin
inay qof kaadhkuula yimid oo iibsadayna tallaabo laga qaadi karo